السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين مدن يال صدوا هذا واحد صدوا تام سنان في تاريخ ضوء أهمانتا صدق هذا بشا لبي طمنا لبكون يو لباتنكا برنامج كعاوة وكدوم برنامج هذه هروجا براتين سنان في واحد نيدا دهنا يعني وافارة حطير روبله برنامج كعاوة واحد نوجم مرتيه شخصي علوس شخصي حمبارسن تاريخ آد وبلارن هالجماء سو مجستي مدحوينها دبتاي دلكين له عمر علم خيره إيو أقويهن سياسي أي عبد الله يا مرتي وعاو برنامجك مدامو شخصي إن بان عادي هيني ومرتويه برنامجك عاو وحن نقعد سنة يا تكنيكا كوحدة إن كشقينيسا داها قداشي إذا عدني مرنا بلانتود أي نهير قلينين إنay noo saaraan heestii calanka maadaama uu noo marti yahay nin calankan dartii dhibaato u mutay nin calankan dartii naftiisa u hibeeyey nin calankan dartii tobannaan sano ugu xidhnaa jeelasha gumaysiga heestii calanka iyo hinjinne aad iyo aad baad u mahadsantihiin
تقنياش باهياش إذا عدى سنان تي في تاريخ صعوتا سمن وليبا شاكي وكسي فوتو ساليه سنديه مدوبا ساعدي كفارتي سوكييها كوكالا حري شلق مين اللغو سوري سمان كاسر لوغا سيدك ديد هالشينني سيدك ديد هالشينو سمد دي وضطا سيدك ديد هالشينو سمد دي وضطا مركو قالكو سوريدي seetada ku xidhay uusan ka arki iyo kuruskeed sibirteeda subagii ku jiray sahal ku nuugaaba soo majeesayaashii shalay siisan kari waayey silic iyo dhibaatadii markay salasho dheeraatay soo majeesayaashii sorotii iyo gaajada dhexda suunka giijiyey sagaari iyo cawshoy waxay soo ruquutaanba sariir iyo raaxada waxay gebi ka soomaanba sawaariikhdii faransiis waxay seef u qaataanba sufay gaalka saaciday sulaadida inaga jecel waxay suuq ku toogtaanba 43 sano sannad maanta laga jiro sandullaha saxeex lagu qasbay inuu ku sii daayo sagta dhaca habeennimo markii soodka loo qaaday soo majeeste cumar cilmi iyo saaxiibadii kale sokeeyaha dhulkiisuu samay inay ku waaraan u sifeeyey hibaduu u sadqeeyey ruuxiis sanku neefloo idil markuu saatir laamaa sarreeyaha awoodda leh sood waxaan ka tuugnaa soo majeestayaashii kuway seefta qaadiyo kuwa saaka nool uu sargaal cumar ka qayb yahay su'aalaha dhibtoodiyo saacadda qiyaamaha sibiq inay ku dhaafaan cumar cilmi khayre waadi maqashaaban u malay adeero cumar cilmi khayre kolley cid ka dheregsan taariikhdaada ma jirto oo anigoo dadka meelahan ka hadla ragga ugu da'weyna waxaan moodayey inaan taariikhdaada aadaan uga dheregsanahay laakiin Somali TV American maalintii aad ka hadlaysay baan wax badan biirsaday cumar cilmi khayre soo dhawow su'aal kuma weydiinayno taariikh culus baad xambaarsan tahay waxa culus aad xambaarsan tahay laba qaybood baan ka dhigaynaa barnaamijkan caawaad martida noogu tahay qayb waa waxaad xambaarsan tahay ood wax naga birtid taariikhihii komandooskii soo majeestayaasha ahaa sababtii ay ku baxeen iyo waktigii la baxshay iyo intay ka koobnaayeen waa su'aasheeda koowaad cumar ku soo dhawow waan dhawahay soo majeestayaalka waxaa soo majeesta la yidhaahdaa dadka dalkooda u dagaalamaya ee u halgamaya صح yaa soo majeesta la yidhaahdaa dulahaan dee jabhadda ragga dagaalka ku jiro oo dhan waa soo majeeste laakiin xasan rooble iyaa eraygani de waa erey soomaaliya oo jira weeyaan laakiin xasan rooble iyaa isagu jabhadda uu u bixiyey bay ahayd dadkii maaragtay kolkii la bilaabay ee dagaalkii u horreeyey markii la bilaabay iyuu bixiyey bay ahayd waxyaabaha lagu bixiyeyna waxay ahayd Djibouti waxyaabihii ka dhacay waxay ahayd yani wax maalin inta badan maalin bay dhaceen ma dhici waqti habeena oo madow ma dhicina waxay dhaceen maalin oo waxaa ka mid ah cali caarif burhaan wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii waddanka kolkaa faransiiska uga ahaa wakiilka inkastoo uu jiray nin oodkomister loolan jiro meesha joogayey markaa dee cali caarif loomana dilayn qolo uu yahay magaciisana looma dilayna waxaa loo dilaayay mabda' bay ahayd ugu horreeyey bay ahayd maaragtay maalin bay ahayd kowdii duhurnimo waxay ahayd maaragtay halkaa hotel cali sabiix uu ku yaallo iminka
iyay ahayd oo halkaa way bannaanayd hoteelku aqal halkaa ayabuu ka qadaynayo qadadii kolkuu qadadii ka soo kacay uu soo dhaadhacay iyuu ahaa weerarkaa uu dhacay waa halkii ugu horraysay bay ahayd waxaa ku xigay maaragtay tajoorro afduubkii jannaali iyo haaduf ay ka soo sameeyeen maxamed faarax dirin iyo cabdi xasan liibaan komanseerkii halkaa ay ka soo sameeyeen oo 8 subaxnimo ahayd waxaa kaloo oo ku xigay ambaasadeerkii oo 7 fiidnimo muqdisho isna laga afduubay waxaa kaloo oo ku xigay baskii oo 7 subaxnimo isna Djibouti dhexdeeda laga qaaday ragga maaragtay waxaa maaragtay hawlaha galayna waad haysin waxaa kaloo oo baska ka horreeyay bay ahayd gaashaamaale oo allah u naxariistay jeelka gabood lagu toogtay iyo maydhana cumar kaahin oo iyaguna siciid cali cumar xafnidana isku toogtay siciid cali cumar ciduu yahayna looma dilay magaciisana lama dilaynina waxaa loo dilayay mabdax baa loo dilayay cidii Djiboutiyaanahe waxyaabo caynkaaya ama ha ka baxaan ama ha ku dhintaan ay ku dhacdayna magac ay leeyihiin looma dilay hore ay yihiinna looma dilay mabdax baa loo dilayay marka dooma jeestayaashu sidaabay ku baxday bay ahayd faaraxo aad baad u mahadsan tahay soo majeestayaashu ereyga soo majeesta siduu nii sheegay soo majeesta cumar cilmi kheere waa qof loogu talagalay inuu waxna dilo isagana la dilo kolka raggaasi 13 nin bay ahaayeen waxay mucjiso ku lahaayeen inay kaga duwanaayeen siduu nii sheegay cumar inay cabsoonayn xigmad baa ku duugan inay duhurka weeraraan cadowga waxay tusayeen cadowga inayna ka cabsoonayn arrinta looga jeeday inay duhurka weeraraan waa taa iyaan u malaynayaa oo inuu cadowgu niyad jab uu ku dhaco ay raggani ay baqdin ayna ku jirin taasay ahayd ta looga jeeday inay duhurka weeraraan cadowga arrinta kale oo jirta oo dadka reer Djibouti aqoonin oo badanka loo sheegin taariikhaha dalkeena waan ognahay oo tareenku kolkii uu soo gaaray leer dadkii fuulay haddii aan ka dhigno gobonnimo doonkii cumarow aan ka dhigno tareenkii uu biidhiga u afuufay maxamuud xarbi faarax allah u naxariiste meel dheer buu ka soo bilaabmay tareenka dalkeena adisaabuu ka soo baxaa adisaaba haddaan ka dhigno dee idinku waxaad ku jirteen cumarow raggii dee ka fuulay hawaas generationkii labaad ee halgankii kale baad ku jirtay halgankii aad ku jirtay ee sidaa ahaa ee gumaysla dirirka ahaa iyo kani cadaalad doonkeeda iminka ku jirto labada midkee kugu adkaa waxa weeye faaraxow halganka gobnadoorka ahaay wuxuu ahaa halgan weji lahaa cidda aad la dirirayso aad taqaanay ninka aad dilay hadduu wadani ahaana sida aan idin sheegayay ma soo dilayay ninka kalena ninkii dee ajnabiga ahaayeen ishayseen waar iga tag walaalkayow aad ku keli weyday de sidii uu kaaga tegayay dhimasho isaguna uu dhinto adna aad dhimato iyay dee taladeedu ahaydoo weji bee la garto iyuu lahaa waxa mashkaladii waxa weeyaan dee ka cadaaladoorkii waxa weeyaan iyaad dili iyaad sadeed maaragtay dayni waa innagii dhexdeedii weeye waxa meesha joogi waa waxaad garanayso oo dadkaagiia dee waxa weeyaan war wixii hore u dhacayna waan ognahay ee dee xaaladdaa innagu maanta aan ku jirno kolkay galeen wadannadii deed ay warahan gacan la iskula tegayna waan ognahay halka ay dee marayaan iyo xaaladahoogi halka ay tegeen marka waxa weeye aad iyo aad bay dee u adag tahay tani oo ay u dhibaato badan tahay oo inaad deed aad tidhaahdo aad hal doonto oo
sidee bay ku suura gashaa iyadoo oyna dhimasha dhicin iyadoo oonan wax kasta oo maaragtay dib inoo celinayo fool xuni ayna dhicin sidee bay ku suura gashaa in isbeddel cadaalad la helo sidee bay ku suura gashaa waa yacni waxa weeyaan waa wax aad u adag weeyaan waxaana rajaynaynaa in ilaahay waxa aan doonayni waa cadaalad annaga oo dalkayaga dadkayagu uuna kala irdhoobin oo uuna kala dhagaroobin oo uuna kala dhimanin in ay cadaalad ilaahay ina siiyo iyaan rajaynaynaa kuwa meesha joogina ay sidaa gartaan iyaan rajaynaynaa laakiin aad bay uga adag tahay kii shalay waan gartay xigmad baa ku jirta waana rajaynaynaa kuwa jooga oo maanta laga leeyahay sidaas inay gartaan su-aasha saddexaad oon kuu raacinayo waxay tahay anoo nin siyaasi oo laga yaqaano baraha bulshadana uu nala joogo oon weydiin doona isagana su-aal doorashadii u dambaysay dadka reer jabuuti waxay kugu arkaan inaad tahay ninkii doorashadaa bediyey oo dadku waxay sugayaan in wixii calankan waa loo soo wada halgamay halgankii calanka loo soo galay midnimaa lagu halgamay gumaysigii ninkii awoodda weynaa ee faransiiska ahaa midnimaa lagu kiciyey midnimadii waxaad moodaa cumarow markii ay dhalatay dowladnimadu ay dhalatay inay wax kale soo baxeen qabyaalad ay soo baxday qabyaaladii oo gumaysiga ka baxun maxay nii qorshaysan taladan ilaahay ha ku gaadhsiiyo inaad waddankan cadaalad ku maamushidooda cadaalad calanka sidaad ugu keentay cadaalad ugu keentid xukunka haddaad qabataan maxay nii qorshaysan inaad saami qaybsi dhaba ummaddan u samaysaan siba xagga baarlamanka kusoo dhawow weeye faaraxow anuukan shalay kandidaaga ahaa alhays waxaan hadalkayga aan idhayahay xukun uma socda ee xal baan u socdaa eraygaabaan maalintii ku horraysay miitiinkii u horraysay aan qabanay aan idhi waana run oo xal baan u socda ee xukun uma soconin xukunna dee ninkii maaragtay ilaahay uu dee isagu dee kolkaa maaragtay uu hore ee maaragtay inkastoo dee teenna imika socota iyo nidaamkeenna imika madax lagu yahay uunan ahayn alla xasaradayn mayne ee wax alla qoray uuna ahayn oo wax maaragtay gamca lagu sameeyey ay tahay oo gamca lagu wax yacni ee ummaddii maaragtay karaamadoodii iyo foodkoodii iyo maaragtay ikhtiyaarkoodii la afduubtay oo lagu yahay afduub madax lagu yahay ay tahay waxa weeyaan anugu wixii ilaahay qoray way qoran yihiin oo way dhaceen taana waxaa loo daayey deed si aynan timaha isku qabsan oo loo xal loo helo iyaa dee loo daayo dee tamaa ilaa maanta socota weeyaan waxa dee kale ee meesha yaali waxa weeyiin haddaan innagu aan wixiina aan odhan weyno waar maxaa sidee bay wax iniigu hayboon yihiin oo iniigu hagaagsan yihiin kolley waxaan u malaynin dee waxaan ku dhici doonaa meel maaragtay aan meesha halka maanta aan joogna aan ka hadlayna ka sii hoosaysa yaa ku dhici doonaa ilaahayse waxaan ka rajaynaynaa inaanan halkaa ku dhicin aamiin insha allah soo dhawaada dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkan caawa waxay nagu martiya madaxweynaha mustaqbalka amba kii shalay badiyey cumar cilmi kheere ninkii ka mid ahaa sumajeesayaashii calanka soo hooyey waxaa kaloo martidan nagu weheliyey barnaamijkan daadahaynaya aqoon-yahan siyaasi aya cabdilaahi aye soo dhawow hadalka adigaa le dadweynaha islaan
kadibna su-aasha ayaan ku weydiinayaa. ay may maqashaa? may maqashaa? waa waan ku maqlaa. may maqashaa? waan ku maqlaa telefoonka. su-aal baan ku weydiiyahayd. soo dhawow. waxaan faarax waan maqlay codka iga xidhnaayo. waa raalli ahaada. waxaan salaamayaa ummadda reer Jabuuti hal dhan aliya dhalay dhan kasta ku nool yihiinba dibad iyo gudaba waan wada salaamaya ideelkoodba. waxa kaloo salaantayda labaadaan salaamayaa Sinaan TV technician-yadooda iyo ragga maxay ahayd hawsha ummaddu waxay u baahan yihiin u suurtageliyey in ay ummadooda halkaa wax ka gaadhsiiyaan. waxa kaliya maanta adduunyada lagu kala socdana waxa weeyaan waa warkiina wax loo baahan yahay aad qabateen walaalahayow. aniga oo dhallin yar oo meelaha dhowr iyo 20 jira baan waxdiidka igu dhashay oon waxdiiday sidoo systemka aan wadankeena ay maanta ay sharaf ii tahay ani ahaan Cumar Cilmi Khayre oo maxay ahayd nin taariikhdu aad ugu weyn tahay oo maanta aan interview laga wada qaaday oo la joogo horumar waxay tahay farxad weyn bay tahay. aniga oo maxay ahayd ilaa maantana wixii aan doonayay aan wali arkin ama aan helin oo ummadaydu wali ay maxay ahayd wixii aan u raadinaynay wali aan guumaysigii shalay aan gobonimada ka qaadanay tan baan naga sii daraatayba. anu inkastoon yaraa haddana waqtigii aan gobonimada qaadanay maanta ta joogtaa tii maalintii Faransiiska naga sii daran oo walaalku dilaya ninba kaama dhabaa la yidhi. waa walaalka oo cadow kugu noqday. iyagana ilaahay haqa noo garansiiya insha Allah. waana ka baxay faaraxadan kugu soo wareejiyay. waa tahay waa maasan tahay siyaasi. waxaan ku noqonayaa soo majeeste Cumar Cilmi Khayre madaxweynaha dhabta ah. su-aashii aan ahayd saami qaybsigii khaladkii dhacay 43 sano ka hor dadkeennii dad la dulmay baa jira waddanka. dulmkii uu sii siyaaday. dadkii dulmigii waagaa ku dhacay iminkana dulmigii uu ku sii siyaaday. haddii isbeddel uu dhaco oo dalkan gacanta ku qabataan taladiisa may nii qorsaysan tahay 45 sano wax dhacay inaad saxdiin oo ah in golaha baarlamaanka la biiriyay matalan dadku way siyaadeen. dadku way ka badan yihiin maanta intii in systemkan la bedelo 65 kursi ah oo la biiriyo si beelaha qadan iyo dadkan waxbaba ay ku dhicin dowladda oo matalaada lahayn sida beesha gabooye ee dalka Jabuuti ku nool. madaxweyne maxay niga qorshaysan arrinka? waxa weeye faaraxow waxa weeyaan wixii shalay dee wax badan baa dhacay bay ahayd oo gobonimada darteed loo sii daayo la yidhi berri baa hagaagiya maanta sii daa la yidhi. wixiina ilaa maanta wuu maqan yahay oo dee dadka reer Jabuuti wuu ka maqan yahay oo dad badan oo reer Jabuuti oo dee ku dulman baa jiro oo wuu maqan yahay. waxa weejin marka dee nabad aan hello maaragtay isbeddel hello tala inoo taallo oo reer Jabuuti u taallo oo iyadoo hareeraha laga jooga la gorfayn doona weeyaan sidii cid waliba ay isbeddelka raalli uga noqon lahayd. cid waloo wax tabanaysiba tala reer Jabuuti u taallo berri hadduu ilaahay yidhaahdo ay reer Jabuuti ka tashan doonaan weeyaan faaraxo. marxaba. waa tahay mudane madaxweyne waa la sugaynaa. mudane madaxweyne soo majeeste Cumar Cilmi Khayre waxaa jira dalkeenu wuxuu ku yaalaa mandaqada istiraatiiji ah. mandaqada istiraatiijiga ah dowlado badan baa degan.
oo laga guraa laga kireeyey lacaga laga guraa lacagaha ay kaba muuqato dalka iyo dadka midna kaba muuqato oo roobkii daruurtii daroortiba diinis bay beertaa dalkeenu dhagax buu leeyahay dekedaha caalamkana waddan dhagax leh oo wadamada magaalooyinka jaarkeena oo jijiga iyo dirnabo kale dariiqada dhagaxda la dhigo miyay u goyn kari weeyay dalkeenna in laga hagaajiyo diimiska lacagta ee soo gasho waddankeenna halkay martaa lacagtaasi waxa weeye faaraxow mahmaah Soomaaliya baa jirto oo waxay tidhaahdaa moolis xumo maalkaaga oo qura karoon waxa moolis xumaa jirto mooliska dadkeedu ma garanayaan waa maamulka sida wax loo maamulo weeyaan صح dhalinyartu inayna garanayn baa laga yaabaa صح sida wax loo maamulo weeyaan waxa weejin waxa mahmaa kalaa jirto oo Soomaalidu ay tidhaahdo reer irkeema sada way dhacday laakiin reer dumarka iyo dadka mahmaadaas oo ay ayadoo waxa la yidhaahdaa reer ay gabadha xaas ku xun tahay maamul wixiisu xoog wax ma hagaago oo marka ay barwaaqadu dhacdo subag iyo waxyaabo nidaam oo hagaagsan ma helaan la yidhaahdaa dee waxa weeyaan dumar uma jeeda imika anigu mahmaadu dumar uma jeegtee maamulka iyaan ka hadlayaa صح oo dumar uma jeeda anigu imika maamul waxaan ka hadlayaa maamulka socda cidda wax maamulaysa oo ah dee madaxweynaha iyo dee maamulkiisa isagaa maamul xun marka amba diimisa la dhex jiifo amba dhooqaha la dhex fadhiye waa reer maamul xun weeyaan oo wixii ina soo galayeen gacan wuxuu wax u maamulaysa iyay isku dhacayaan marka dee haddii aynan gacantii hagaag wuxu maamulaysa diimiska iyo dhooqada iyo u saabantee la dhex fadhiye waana wax maamulka ka imanaya oo maamul xumo weeyi waxaas waa tahay waan gartay soo majeeste haddeera waxaanu ka hadlaynay rag waktigii gobonnimo doonka miidhada diiday horta ninku dulmay hadduu diir madow yahay walaal kula yahayna inaad iska qabatay weeyiin hadduu cad yahayna ninku dulmay waa ninku dulmay kolley dalkeenna maanta waxaa jira dadkaasi ay dhaleen sidaasay u gannoodaan nin baa la keenay waddankan afrikaan ah oo leh jabuuti waxaan doonaan ka samaynaya telefishinka maalidhowed kalaa ninkaa gabadh buu qabaa uu madaxweynuhu dhalay waxa uu leeyahay ninkaasi wax alliyo waxaan doonaan jabuuti ka samayni waa nin cleeb buu xukumaa baa la yidhi qof buu cleeb buu dibadda ka keenay wuxuu ku leeyahay anu waxaan doonaan samayn karaa ninkani ma bob daynaarkii ilcomors qabsadayba jabuuti ilcomors bay ku socotaa sidee dadka reer jabuuti arrinkaas miyayna ku baraarugsanayn ninkaa kule ajaanibka ee kule anugu dalkani waxaan doonaan ka samaynayaa faraxu waxa arrintaasu injan baa ka jawaabi laakiin inteeda kale hadal aniga igu habboon ma aha inanteenna maaragtay iyoole wixiiga maaragtay hadalkaadu hadal igu habboon maaha inuu horta waxba ka odhan maayo marxaba laakiin waxa weeyaan maamul xumadu iyay ka mid tahay waxa aan sheegayna maamul xumada iyay ka mid tahay oo maamul xumada aan sheegaynay ku jirtaa faaraxow oo dee waxa weeye ilaa niman xishoonayn dagaal xeeli kama hayso baa la yidhaa صح haddii yacni inuu dee aan aragnaba ma ahayn haddii yacni ay jirto aad iyo aad dalka iyo dadka la xushmaynayo oo la ixtiraamayo oo nadaam jiro inaan aragnaba ma ahayn waxay ahayd inuu inaga qarsoonaado oo inaan arag iyo xeer ahaan ahayd laakiin dee waxaa dhacday dee talaxumaa dhacday talaxumada iyaa ina tustay talaxumadaabaa tirtirfihiisii iyoole dee hamhamtiisana aan oo arkaynaa waa saddex hadduu ilaahay yidhaahdo wax iska dhammaan doona weeyaan
waan gartay waan gartay waan gartay waa reer baawiyaa ku leh hadalku intaasu ku dhan yahay reer baawiyaa kule weeyin waxaan u noqonayaa siyaasi aye waxaad moodaa dalka Ethiopia waxbaa ka dhacay waxaa ka dhacay ninkii ra'iisul wasaaraha dalka ahay oo hadlay wuxuu yidhi siday wax uga jireen dalka Ethiopia waxaan ogeyn mayna wax kaluu sheegay oo ah inay ku tala galeen nimankii TPLF in Ethiopia 100 sano soo socda ay xukumaan arrinkaasi arrin u eg baa dalkeena ka jira sidaad u aragtaa arrinkaas maadaama tahay qof siyaasi ah oo la socda marxaladda dalkiisu marayo markaad u eegtid meel walba inay nimanka raggaas waa rag tolkeena annagu ma wada isaga maanu dhaarin gebigooga maanu dhaarin ninkaan dhaarinay iyo cadaalad darrada sameeyey laakiin arrinkaasi xagee ka imataad u malaynaysaa wax weeyaan faaraxo waa su'aal meesheedii taallo maanta kolba wixii ka jira maxay ahayd gobolkaaga in aad maxay ahayd wax la iska weydiiyo wax meesha yaalla waxa weeyaan arrinta maxay ahayd Tigreegu ay wadanka Ethiopia waagii ay Katarmantionskii qabsaday ilaa maanta ay ku wadeen waa talada annagana na haysatay ilaa maalintan calanka qaadanay 6 bilood dabadeed wax maanta yimiday maaha dawladda Tigreega maxay ahayd Meles Zenaawina wuxuu ka koobiyay ahayd arrimaha ka dhacay ay wax ku xukumeen Ethiopia waa wuxuu inaga qaatay oo Ismaaciil Cumar baa siiyay planga keligii ma ahayn isaga macallin u ahaa isaga iyo ninkii Ali Cabdalla Saalax ee Yemen maxay systemka uu wadankiisa ku maamulayay labadaayba waxay ka dab qaadanayeen waa Ismaaciil Cumar waxaan ku garanaysaa inuu ka dab qaadanayeen maalintii wadanka Brussels uu ku dhintay iyo dhowr shaal qarinayay ina Cumar inta oo dhan uu murugaysnaa markii dambana waadigii inaad maqashay kalmooyaan uu taalla Ismaaciil Cumar oo lacag xoog leh oo wadankiisu u baahan yahay taalla ka bixiyay in loogu sameeyo marka systemka maanta inaga waxa loogu diidayo qof kale oo maxay ahayd systemka Ismaaciil Cumar uu sameeyay inuu qof kale soo dhex galo madaxweynenimada uu otaashka u haysto haddii sida maanta Ethiopia isbeddelka ka dhacay Abiy Ahmed uu yimiday qofku xornimo u helay waka Abiy Ahmed ku leeyahay muddo waan xidhnaa anigoo ra'iisul wasaarahan xidhnaa oo waxaan ku xidhnaa miirka maxay ahayd haddaan ilaa presidentka dhexdiisaan ku wareegi layma ogolayn oo wax loo odhanay joog maqsinkaaga iyo birogaaga ku ekow soomaad garan marka qof kale hadduu systemka yimaado arrinta inay dumaysaa la garanayaa marka in la isku baahiyo oo ummadda kale laga maxay ahayd dayriyo oo laga durkiyo way ku qasban tahay systemkayna system Djibouti Ethiopia Djibouti ay siiso in Cumar siiyay bay ahayd maxay ahayd dawladdii Tigreega maanta hadda halkay joogaan way arkayaan waxaan u dirayaa baaq dadka waxa aaminsan inay wax kasta oo maxay la aaminsan yahay dulumay uu dumi doono haddii Ilaahay yiraaho waana ku salaamay walaalkay ayo haddaan adigu kugu soo noqdo arrinta ka jirta Djibouti ee la mid ah tii Ethiopia ka dhacday gobolka Tigreeg nimankii TPLF ay sameeyeen ee la mid ah ee Djibouti ka jirta de arrintaas Ethiopia xoog baa lagu suuliyo lagu qaaday dagaal baa lagu qaaday annakii waxaan leenahay raggan waa rag walaala laakiin ninka meesha xukumay hadduu walaalnimada isaga arkayn maxay akhirtaanka xala horta waxa weeyaan ninku yidhi maanta demokrasi baa uu sheegtaa Ismaaciil Cumar demokrasiga uu sheeganayana demokrasi wax ka jiraan maaha waxa weeyaan waa wax aan jirin oo beena waa dictatorkii oo dirays intuu xidhan buu qori qaadan maanta Abiy Ahmed qori buu qaatay ina Cumar ninka yidhaaha maanta vote baan la dhigan waa nin been isku sheegaya una xalaaleynaya waa kow ninkani wuxuu yidhi war hadalkiisu cad yahay Ismaaciil Cumar wuxuu ku cad yahay war ninkii doonaya kursiga inuu ka qaado intaan kaado kugu soo duuba gacanta kaaga maridayay buu ku leeyahay war iska kay qori qaado ila dagaalan buu ku leeyahay solution kale in aan ku tagay ma jirto isagaba ku cadeynaya aha okay marhaba
hadda waxaan u noqonayaa soo majeeste cumar cilmi khayre magacaasi in loogu yeedho kolley tooliye inaan madaxweynaha soo majeestaha dhahno ayaan nagu habboon madaxweyne cumar cilmi khayre dadka reer jabuuti doorashadii aad gashay waxay og yihiin inaad adigu badisay inaad madaxweyne kugu yeedhanana wax qalada maaha dalkeenna dagaal baa ka dhacay dalka eritrea ayay dalkeenna isdirareen dhul baa laynaga qabsaday dhulkii laynaga qabsaday dowladaha soo dhex galay dumeera iyo raas dumeera qatar oo gacanta ku haysa khaliishkii khilaafkii dhacay ismaaciil cumar sacuudiguu raacay qatar buu xidhiirka u jaray qatar waxay ku wareejisay dumeera iyo raas dumeera eritrea maxaa arrintaasi maxay ku salaysan tahay siyaasadda amuuraha dibadda ismaaciil cumar waxa weejin haddii ninku hadduu dee dalkiisa u fikirayo oo uu adiga dalkaaga sidee u dana uu ka fikirayo iyuu dee maxay halkaasu kaaga soo bixi iyo maxay noqon haddaad dee qadarka hayso markaasoo idigii eritrean kala dhigtaa dhulkaad ku haysateen bay joogtaa dee haddaad tidhaahdo maxaa kaaga soo bixi inuu dee ka fikira wey waxaad moodaa ismaaciil cumar inuuna u fikiraynin dalka iyo dadka midnaba inuuna u fikiraynin uunan lahayn waayo intaasoo dhan buu dee soo ahaa madaxweyne inuu waxyaabo badan dee fikrado badan uu qaato oo uu helo bay ahayd horta dagaalka eritrea innaga ina dhex maray kolka horeba sababta uu ku dhacay maxay ahayd ma garanayno sababta uu ku dhacay dagaalkaasu ilaa maanta anugu ma garanayo dadka reer jabuutina sidaayoo kale wey isaga qudhisaa garanayn oo yidhi sidaad ka tihin baan ka ah yeelkeyga wuu dhacay hadda haddana dee farsamaa la sameeyo waa layna kala dhex joogo wuu oggolaado wuu keenay marka waxaan u malaynayaa meeshaas in yani waxaan afkayga ka dhowrayaa wax ma og tahay aad iyo aad maduunya la dhaafsan karaa waan u jeedaa meeshaas ciidankiini kala dhex joogay uun kol qura sara kaca oo aday xidhiirhkan u gooyay qatar sacuudigana waa raacay dee waxa weeye war taasu dee dadteedna maahayna maduunya la dhaafsaday wax kale oo meesha ka muuqdo oon arki karno waa siyaasad xumo waa siyaasaddeedna arrimaha dibadda teedna gudaha iyo teedna dibadda intuba waa wax dee isku laakan oo cishaba sidii waagu kuugu bashu uun loogu dhawaaqo weeyaan marka waxaan u malaynayaa in wax kale oo meeshaas raggaas lagaga kiciyo ayna jirino wax la dhaafsaday baan u malaynayaa waa tahay soo majeeste cumar cilmi khayre waa run oo inay aad u kulushahay oo caloolxumo kugu tahay dalkii aad sidaa ugu dhimateen raggiinii halganka u soo galay haddana sidaa dayalka loogu ciyaaro kolkaa ninkaasi waxaan u malaynaya anigu dhidid iyo dhiig buu midna ku bixinin dowladnimada oo si dhayala ayuu halka ku yimiday waa waxay dadku ay odhan karaan taa waxaa lamid ahayd arrinkii dubay world oo annakoo boqolkiiba 760 leh oo dubay world boqolkiiba 30 ay leedahay lagu wareejiyey maamulka terminaal kontineerka dooraale meel walba imika haddii aad hodhow qabatid dalkan ood madaxweyne ka noqotiin lacagaha dubay world loo xakumay ma bixinaysaan mise waa diidaysaan waxaa odhanaysaan dalkii ninka ana kuma lahayn baad waxa ana kuma lahayn ma odhan karaysaan waxa weeye faaraxow kolka dowladuhu marka ay dee wax galayaan sida yani caadiga ah dadka ay wax la galayaan dee waxyaabo
waxyaaba xeerar baa jira la mariyo oo la kala saxeexdo dubay xeerar bay la kala saxeexday bay ahayd xeerarka France laguma saxeexin jabuutina laguma saxeexin dubayna laguma saxeexin ingiriiska ayaa lagu saxeexay sida aan maqlay waa dadka igu xooga dee kolka horeba dareen bay malaha qabeen oo meel waxay tegeen sharciyada caalamka ee socday ay jiraan bay tegeen oo igu xooga ku saxeexeen ay la tegeen markii wax ay imanayeen dadka sida aan arkayno boorarkan ay sameeyeen maahina waxyaabo kale oo dee fasiliteeyo oo ay sameeyeen oo loo yaa jiray kow inta badan dee isaga iyaa la galay waxyaabaha laysyidhi iyo waxyaabaha lagu hadlay iyo waxyaabaha isagaa la galay iminkana labadoodii unbay ayay ka dhex garaxday waxa la yani dubay maahine innaga iyo for example shiinaha haddaan ka hadalno wax alla wax ay ummadda reer jabuuti og tahay ma jiro muxuu boor ku yahay muxuu tareen ku yahay muxuu ka kale wax alla wax la og yahay iyo wax maaragtay ma jiro tareen baa socda wax alla waxaan ku leenahay ma jiro cid reer jabuuti oo shaqaalo oo ka shaqaysa ma jiro kuwa yaroo kooraankay sameeyaan la yidhoo buutoyo fuulfuulo oo meelaha iyo jiro kuween waa la wada weriyey oo waxa yaree la siinayay baa dee loo diidan yahay tareenka dad raacay waxay ga yidhahdeen oo tays etoobiyana la socda innaga qof la socda tareenka oo shaqaali ihi ma jiro dad la tababarayo oo berri raggii tareenada wadayay ma jiraan etoobiyaanka way la socdaan waxa weeye shirkada ajaanib oo yimid oo dalkeennii tareenna ka samaysto waxay doonaan ka samaysto boorar ka samaystayo waa la dhex socdaan dubayna dee sidaas oo kalay ahayd marka waxa weeye waa wax iyagu ay kolka hore ku heshiiyeen iyo iminka isku diideen waxa lagu kala saari karana dee raggaasu meel bay tegeen oo wax geysteen in baarlamaaga la mariyay ahayd sharciyada caynkaasa in baarlamaaga la mariyay ahayd in maaragtay la ogaado oo hadhow beri wax weji lahoo dadku garan karaan ay noqdaan bay ahayd wax la hayay ma jiro ciddii wax inagu sheegataba maanta waxbaa nagu leehay tidhahdaba waxaan ku beenayna ma hayno waxaan ku aqbalana ma hayno marka waxyaabaha iska waa waddanka keligiisaaba sidaa amaha dubay una waddanka keligiisaa sidaaya waxyaabaha kale ee kollay soo bixi doonina way ka badnaan doonaan waxa kolka waxa wuxuu uga tegay waddanka caawa ismaaciil cumar ma jiro maadaama waddanku dastuur lahayn uu xeer dejin lahayn oo uu xeer sharci dhowridii lahayn maxkamaddii wixii oo dhan uu isagu yahay kooxdan asambaleega fadhiisatay dibiteeyadii maxay ka shaqeeyaan kuwaas miyayna xaq u lahayn inay dalbadaan war shuruucdan heshiisyadan dalku uu galo sidii heshiiskan iminka la samaynayo la leeyahay fon sufreenka ee loo rarayo senegal lacagtan egseedaanka ah ee ka badatay dalkeenii dadkeenoo gaajoonaya loogu rarayo senegal baarlamanku miyayna shaqadoodii ahayn inay hadlaan oo yidhaahdiin wixii dalkan uu heshiis gale waa in alla kale la soo mariyaa oo dhan baa dee sharcigaaba tilmaamaya in iyaga la mariyo laakiin sida aad ogtihiin innaga waxaa jira walaa baarlamaan walaa meel kale walaa wasaarado kale walaa waxba waxa weeyaan suuq ha odhan haddaad suuq tidhaahdana waa dhaqaaqi taa darteed cidina suuq ma tidhaahdo cidina wax ma weydiiso cidina wax ma tidhaahdo walaa wasiirada walaa baarlamaaga walaa waxba waxa weeyaan ismaaciil cumar kolkuu meesha yimiday wuxuu sameeyey waxa wixii sharci dalka jiray iyuu baabi'iyey ee amo kii dhaqaale u diidayay ee dhaqaale inuuna isagu xukumin oo cid kale xakunta sheegaya wuu baabi'iyey oo inuu isagu xakumo iyuu xalaalaystay hadday maxkamad tahay wuxuu xalaalaystay inuu isagu xakumo hadday maaragtay tahay maaragtay autonom tahay inuu isagu xakumo hadday finance tahay inuu isagu xakumo hadday boor tahay waxa weeyaan
وخانة بدن وشو سميستي وشبكانة ودمع كتير لك على يوم كرام يجوي يندل معها ما الدولة نمدي يحرر كيجي يندم كيجي ووصول دكاتي مالتي إسماعيل مرهم بدحوينا النقطة يو دكاتي أو لغا خلص وحي حير دالكايولها هدي أمنستراسيون تاي هدي وحكالة تاي هدي تعليم تاي هدي عاصمات تاي هدي ميل والفا وحان نحي داد مخايط اللي جاي يان دحفتنا أو مارك الشواسل دونا يالو ونصيب درada dalkeena ku dhacday sax waa nasiib darada dalkeena ku dhacday ee jirta mudane madaxweyne ismaaciil caawa hadduu dhinto dalkeenu si uu kala soconayo maadaama uu sharci jirin oo shuruucdii oo dhan uu jaabka isagu ku shubtay ilaa ninkani dhagax maahina waa qof wad leh oo hadduu dhinto caawa dalkeenu muxuu ku kala soconayaa ma jirayaa dalkani gadaashiisa مجرية هدون ضد هاي هدان ضدنا هاي مجرية هدينا ووحيابها وإسماعيل كنت رجلي إن ما رجلي ودلكنا كذا دعيو إننا نجري كريم هدون دتيسو تماردنا إننا نجري كريم هدون تجانا إننا نجري كريم ووحيابها ضدك إنه كذا دعيو مدحوه وقليو ودون يا إسماعيل وجري يا دلكينو أمت بالدلك إني أمت نقطويان دجرة أورد وجرة وواحد إني يبليه قرانا يا إنه نبات وننو اللي كيس نبات إني كنا كل دعوة إنه كبت بادي إنه نكس نبات طبعا قالوا وننبات وكلان ولو كلان دلكين واحد الصحور دعوة أمت بالنخي inaan maaragtay aan dalkeena aan nabadgelyadiisa iyo jiritaankiisa inaan ku dagaalano weeyaan oo nidhaahno ma soconayso xumaani haddii jiisu timaadana inaan dalkeena badbaadsano haddayna iman oo isagoo jooga inaan badbaadsano oo isku tagno oo nidhaahno walaa asalaamu calaykum isagana maaragtay yacni isagii baad maanta caayihiisa يدعوا يعني كرامتي إستكان كرامة هاي ما دل مدحوينه سو كرامتي هو كهذا يوم مدحوينه كرامتي هو كهذا هي شرف تقدمتي هينا آمين كرامة الله إنك كهذا هينا كرامة هاي آمين ولا هاي كرامة هاي دولة نمرة دي بس دولة نمرة أنا إيران حجي سكرنا أو أذكر سكرنا إسماعيل مرنا ندام ونا كرنا كلام كده شكرنا وحكى الصوت على أي دولة نمدي كده إن المسكين نقل إنه كان ضدنا قلنا وين جري دابا قلا يا waan gartay soo majeeso waxaan ka waday maadaama uu sharci jirin iminka madaxweynuhu hadduu dhinto dastuurkii golihii baarlamaanka hadduuna shaqaynayn haddii cidba ayna shaqaynayn kolkaa waxaanan aragnay dalal keligitalisyaal caynkanay ay xukumayeen oo raaceen dalkeenna société civilka siyaasiyiinta mucaaradka ah ma haysaystaan oo dalkeena waa ninkan nin da'a weeyin sharcina ma jiro waddankii oo si aad iminka sheegaysid maadaama hadduu sharci jirin ma laga yaabaa inay hordhow cid kaliba ay doonto alla madaxweyne noqonaya ay tidhaahdo waxaan leenahay waaye aragnimo iyaan leenahay faaro shalay waxaan ka soo qaadaynaa Soomaaliya iyaa ka soo qaadayna Soomaaliya markii ay shalay burburaysay waxaa jiray dhow innaga deesideenna maaha inta badane waa reero iyaa maaragtay oo bahash kolkay reeriyo qarbuun gashana way bool xumaataa waxaa yacni magaran xamar madaxweynaha markuu ka baxay rag manifesto la odhanayay baa joogay gudaha
raggii baa wax sameeyey oo yidhi waar hebel ha sii joogo ku meel gaad ninka aydiid la odhanayay baa yimid waa laba nin oo ilma adeera waar wixii aad qabateen baad dee bal waa yahay labadaa sannadood hanoo berri si meel loo gaadho waa meesha iska egun taayoo kale waayo aragniman kaleen oo inay dhacda ma aha madaxnimo qofka bini aadankii hadduu madaxnimo doonayo meesha uu madaxnimo ka doonayo meel nabada inay noqoto wey meel jirta inay noqoto wey meel dadkeegu uu wada jooga inay noqoto wey meel ummadeedii ay dhisato isku kalsoon tahay wey meel ummaddu karaamo leedahay inay jirta waayaa meesha ay ahaato war wixii karaama wixii jiray oo dhan waa la inaga qaado waxaa tahay taageer hadda aan inaan karaamadeenna dalkeennii baan joognaa ku dibad joogiya kuda joogada dalkeennaan u hadlaynaa oo ka hadlaynaa inaan karaamo leenahay oon dalkeennii joogno oon dalkeenna wixii nagu diidi karno wixii wanaagsanna qaadan karno karaamadeenniina soo noolayn karno dadnimadeennii iyo sharafteennina soo noolayn karno inuu nin waliba niyadda ku hayo wey waxba noqon mayno wax alla wax nagu dhacayna ma jiro waayo aragnimaan leh waan ka banaanaynaa ilaa inka soddon sannadood ee soomaaliya waad arkaysaa weli ay bahashii daba socdaa reer kuxika adiga reer maxayda lahaya israa'iil baan arkayna dhulka oo dhan baan arkay waayo aragnimo bini aadamku waa inuu faa'iidaysto oo uu wax dhacaya ka faa'iidaysto oo uu wax dhalinyaraan u badannahay nin waliba wixii alla u qoray wuu heli doonaa laakiin wax walba ka wey adeer marti reerduudiyo marti ha noqonina dalkiin ibaa joogtiin war socota ha noqoninoo marti ha noqonina dhalinyarta iyo dadka marti ha noqonina ayaa leena dalkeenna han hagaajisano nadaamsano ilaahay wuu inala qaban wax oo wuu inoo garanaysa ismaaciil cumarna berri wuu iska tagi hadduu sharaf doonayana waxaan leenahay adoo sharaf labaan walaalo ku haynaynaa oo kusagoosirnaa oo sharafta oon ku maaragtay adoo sharaftaadii huwan aan kuu daynaynaa oo go' sharafle ku huwinaynaa hadduu diidayana isagoo oo meel walba ranki laga mariyay oo rasiirta ku socon sharaf iyo ismaaciil kulley way kala tegeen waad mahadsan tahay soo majeeste waxaan noqonayaa ayaa cabdilaahi ayow waxaa socda waayadan ismaaciil 2 bilood baa u hadhay waktigii uu hayn lahaa xilka sharci darrada ah 2 bilood oo u hadhay wuxuu yidhi 5,000 oo carruura ayaan shaqo siinayaa miyaad rumaysan tahay inuu 5,000 oo carruura shaqo siinayo 2 bilood gudahood wuxuu 20 sano ku qaban waayey ismaaciil faaraxow waxa weeyaan waxa jira war garaad dhaamo baa la odhan jiray bay Soomaalidu odhanaysay war garaad dhaama Ismaaciil Cumar iska taa weligeedba waxay istiliizayaan ummadda baahida ku isticmaalaan waxayna baahida ugu isticmaalayaan waxa weeyaan ummadda halka ay gaadhsiiyeen iyo halka ay dadku jeefaan bay og yihiin marka maalinta nin baan lafan ku tuuri iyo dheemal yar baan ku daadini weligeedba waxay ku meermaraan ay ku socdaan marka kampanigiisa weli ilama imika isagu labadiisa dabnood ma soo marin sankeen baan soo joogsanaya weli lama hayo cabdikariin aadan sheer iyo presidentga assembleega waa tournee samaynaya jasti baa la arkayaa wax weli imika uu la odhanayo Ismaaciil Cumar isagu inuu ka tagayn waan ognahay aqligayga siduu nasiinayo isaguna adduunyadii iyo wadankii gudihiisaba in lagala wada yaaban yahay inuu marshana soo noqdo uu iska og yahay beet maaha meesha doqoniima ku jirta magaran marka Ismaaciil Cumar sankem kaayo dhalinyarada waa shaqo geyn leeyahay waa dhalinyaradii de askarta lagu gurayay marka kampanigu dhamaadana la dareerinayay boorka sida la isku gudrasaynayay kampaniga dabadeedna la dareerinayay waa wax caadi oo weligeedba soo jiraysa wax aan dhibaato u arko maaha faaraxo
مرحبا waxaan u noqonayaa cumar cilmi khayre oo caawa aan aad ugu faraxsannahay inuu halkan nala joogo oon ka faa'iidaysano joogitaankiisoo quraatay iyo hadalkiisu xigmadda leh uu mar walba isagoo calanka u soo halgamay oo laba nin oo kala duwan ah markuu 20 jirka ahaa wuxuu islahaa ummaddaadani ha gaadho nolol ha ku noolaato ayuu inuu wax dilana ugu diyaar garoobay in la dilana uu diyaar u ahaa maantana wuxuu leeyahay cadaalad dalkaygu ha helo cumar cilmi khayre 3 sano dowladda oo xor ah oo calanka la haysto ayaa markii hore ay dowladdu raggii talada ay raggii la xidhiidh ku jiray cumarow waxaa socda mucallimantii dadkii mucallimiinta ahaa yaan wararka ka arkaynay in loo tagayo oo la leeyahay soo baxa oo 16 iyo 17 yimaada meesonda beebelka oo baalada beebelka loogu qabanayo shir maxaa ku jira halkaas macallimiintan goorma u dambayso ay dowladdu xasuusato waxa weeye kolka ay dee 5 sannadood dhammaato ay soo dhowdahay iyaa la noqdaa waddani markaasaa maaragtay wax la xasuustaa markaaba kii macallin ahaa la xasuustaa markaaba shaqaale la xasuustaa markaaba dhallinyarta gidaarada wada jifta ee dhulka ku dhaqsiday la xasuustaa markaaba dadka la hohoomayaan war maxaad la yidhaahdaa waxa weejin waan maqlay warkaa waan maqlay ahayd in macallimiintii loo tegey oo la yidhi lacagtaa layni birin oo waa layni madoobayn oo waa layni casayn macallimiintu dee macallimiin iminka ma jirto iskoolana ma jiraan ardayna ma jirto dadku waxa weejin ardaygu waa dee iska daa maaragtay iskoolada hoose ee jaamacadda iyo 60 iyo 80 loo galaa galaasyada sidaan maqlay kuwa hoosena kaba sii daran macallimiinna noloshoodii iyo dadnimo macallimiintu horta waxa weeye waa waalidkii labaad weeyaan oo waa dadka tarbiyadda iyo carruurta kolka ay wax dhiganayaan waxay kaga daydaan xaragada sharafta maaragtay wax wanaagsan oo macallin qurux badan oo goor walba labisan oo goor walba maaragtay dhar fiican iyo kaba fiican iyo sito oo si fiican oo ubadka maaragtay model u noqdo صح iminka macallimiintii sida ahayd dee waxaan u malaynayaa ilaa acwaal baa ugu dambaysay jabuuti waxaa jira dad maaragtay oo dadkii dee indhooftay in dhimatay in iskaga tagtay meesha oo maaragtay gidaarada iska fadhida iyo weeyaan macallimiintu waa macallimiin aan dhaqaale haysan oo cid nidaam oo warka haysi ay jirin oo guryihii yaraa ee la siin jiray waayadii hore ninka macallinkaa hoosiya ku saraba guryay lahaayeen oo wax waa dad la baabiyey oo wax maa hore laga taxalo saandiikay lahaayeen oo saandikadoodaabaa wax odhan jirtay oo waa la xidhay saandikadoodii oo wixii saandikadaa ku jiro dhan waa la wada baabasho waa la wada xidhay dadka dee waa la hadalkaadaba waxa ugu dambaysaan u malayni 80 waa dad wada kaba dacasiya sitoo iska daranyaysa weeyaan oo ubadka kolkay dee 60 ubad oo 80 ubad oo meel fadhida u galaan way ku jahwareerayaan صح dad dee waa horeba mooraan ka dhintay oo la duleeyo dulaysan iyo macallimiintu yihiin أديات kuwiiba dee iminka la doonayaa maadaama doorasha soo dhow laleeyahay صح iyaa la doonayaa boorka in laga jafo waxa yani eg bini aadamku kolka uu fikiri waaye war wax shalay waxaabaa tidhi maanta wixii ha odhanin
صح لو بني آدم وإنه فكره صح والله إذا شالي وحاباتني ما تعطى أنت دي وادتك ويكوكرانا يان وكعيبو ما درت جدا إنه بني آدم ويرادو ما درت ما امتحان لك هذا هي الامتحان لك هذا اللي يرفض بالو يورو امتحان لك هذا أسكت بالله يقول لك بالو كل كي امتحان كل دم يوم بي وسيرتي سوق عيني إلى جوجي امتحانك امتحان لك هذا وصل يقول مكان ما هاي يجيرو امتحانك تبقى امتحانك مرة ما تبقى يجي هذا جوجي تبقى امتحانك الأول ويجي امتحان ده اللي يجي ولا واحد غير امتحان الأول واثنين وين سبحان الله وين يستاهل شمان جيرو وتبكي وسيرتي بعد تبقى يجي ما كذا إن رجع يطمر تبكي بتأكل الدوالة أنك الله توما كذا توما كذا شكالان اللي هو بالله كذا يروح فوق واحد رماه إن ما الله حد أنت نسكتر إنجيسا ما أنت واحد لو يانا يبغي اللي طلع هنكو كالايا دي واحد وين وشمبريا هو هسوي إن الله شمبريا هو هسا هالكائن كائن هاللان ما ركتج بالين دبابلك إنه كا وحلا دوني واحد جلدي حيل سياسة واحد سيبالي هاي ما هي سينيساوي يدي سومالي أو هستو يسقى هسيتي هاي صدق يحدك مركي هو يعاد الله أساسا هو يعاد هو يشرطيو وطننا لي إنجليز كسنو إنك قلت هاللون ده يا اللي حدودي يا اللي قاعد صح ده سومالي قلت سومالي قلبي يعرفني بإنجليز وطننا دي وكنت جاي عيدو سنو دي هاللون ده يا حدودي أفريقيا صح سومالي ده مركا استو واحد إلى الحيل الثلاثة وحيولي شمبريا هو هسا هيس ونكس سوفر هسا هلك سوفر استكالا يا هورتي أفريقيا دي والله هذيا صح دي ما أنت ويا المعلمين اللغة يا دبالة دبالك شمبريا هو هسا هلك سوفر استو مدحوينه وحنا يلعب بالله يديرين مدحوينه وحنا يرسلن بالله يديروا ولا ينعسي ولا ينمروي مدحوين lacagta loo biirinayo maantay macallimiin noqdeen 40 sannadood lama waxa macallin wax loo biiriyay macallin la dhibaateeyo maahina ma hayno صح maantay dadku dhasheen waxba kama jiraan waa dhibaatada dalkeena haysata waa waxaa la sheegayo shaqo baa shaqo la sii kali baa shaqo la sii waa yani waxaa layna bartay inaan maaragtay waxba waan ilaahay waxna siiye joogti dadku ha gartaan waxan waa iska daaya waa runta barnaamijka gabagabadiisii baan ku jirnaa laba su-aalood baa inoo dambaysa maalin dhaweyto waa xaddiina dhaaftay soo majeeste waad hadasheen hadal xigmadlaad ku hadasheen waxaa tidhi hadalkaaga haddaan dib usoo qaato war waan wada leenahay wanaag baanu doonaynaa desembar intayna dhammaan inaad jawigan bedishid iyaa dalbateen haddii jawigaas waxaa tidhi arrinkan ma soconayo sida haddeetu ku socon maayo waan u jeednaa inay arrin soconaysa ahayn haddii uu ninkaas waxba iska bedeli waayo maxaa inii qorshaysan صح qof baan ka ahay waxa weeyaan walaalow han wanaag ku dhammaysana wixiina صح haddayna ahayn dee waan soconaysaa kee maadaamaan aadayaa dee kolkaa maxaa nahay dee xoolaa nahay wax qadarin ma jirto dadkan biniaadanka qadarin male waxba male ummaddu dee iyadaa dee soo bixi oo oran waa joogso naga joogso walaalka صح intayna halkaa gaari weynana walaalo han dhamaysano wixii noo wada haba soomaalidu waxay ku maamaadaa gees miliqsi bartay iyo doqon maalantii way isku miyirdiirmaan waa ummadani way maalantay oo
maaragtay ummaddani waa ummad yani halkii ugu dambaysay bay joogtaa aad iyo aad wayaana foolxuma laga doondoonin aad iyo aad foolxumo iyaan laga doondoonin wanaaga ha loo jahaysto wanaag ha loo jahaysto wanaag ha loo jahaysto waa hadal meel doorasho lagu galay ma joogo dadkeennii oo dhani laba qofoo wada hadlaysi ma jirto imika in maaragtay dad cagaagan kabaan iniin gelinaynaa la yidhaahdo maaha waxaas wax doorasho lagu gala maaha wax ummadan ay leki karto oo ka dhaadhici karta maaha meel wanaagsan baan joognaa halkaa wanaagsan aan ku tashano oo joogno baan leenahay haddii kala dee wixii aad ka helaysiin dee waad ka heli doontiin ما شاء الله إلهي عمري عافماتك باكو ديرايو هكو سياديو سوما جيسي عمر علم خيري سؤال شيء قدام بس سوما جيسي كلي waxaan jeclaan doonaa barnaamijyo caynkana inaan sii wadno oon dadka dhalinyarta aanan garanayn wadaninimada oo taariikhdii waddankana laga aasay inaad wax u reebtaan oo hadda fursad baan haysanaa oo idaacaddii rtd oo kaliya hatay ma jirtee idaacado badan baa jiro oo kuwa meelaha iska socdaa jiro oo wax reebaya wax kayda inaan kaa reebno soo ma jeeste su-aashii u dambaysay 13 nin ee commandoska soo ma jeestayaasha ahaa ee camaliyaadadii fuliyey lagu weeraradii fuliyey imisaa ka nool haddaan magacdoodii dadweynaha waan u akrin doonaa dadweynaha imisaa nool axmed cilmi khayre cumar cilmi khayre محمد يوسف محمد فارح در وجناله عبد حسن هاتف محمد عثمان محمد عثمان هوفني عبد حسن علي إبراهيم هوفني علي إبراهيم هوفني وانقرنا يا بنتي قاشامالي ميدانا عمر عبد الرحمن وعيس يعقوب در موسى الروبلة بعدو حسين عبد الله رجع مثال نول سوم جيسي صدق منه كل ياتان نول محمد عثمان وفريق والله تلقى حوسكوا عبد الرحمن وعيس يعني صدق يدا نول إلهي عمر دير يا عافمات هل نسيو waxaan hadalkan ku soo celin doonaa waxaan baaq u dirayaa intaan hadal ka bixin idaacadaha reer Jabuuti maalin dhaweyto waxaan maqlaayay nin cali xarare la yiraahdo oo saaxiib nahay oo Somali American TV hogaamiya inuu sheegay inuu raadin doono ragga kaleete ee 13 kan soo majeestayaasha inta nool inuu raadin doono ayuu sheegay waxaan nigu dardaarayaa dadkeena dadka ay ku abtirsadaan inaad raadisaan inkuna oo taariikhda ka reebtaan maxaad ku soo gabagabanaysaa hadalka adiga leh soo majeestay waxa weeyaan wixii waa wada ognahay yani xaaladda maaragtay dalkeena waxaan leenahay in wakti baan joognaa waa milay iyo malabaa la yidhaahdaa dadku waa dalkoogii ambaan dibad joogno ambaan guda joognay Jabuuti baa noo waa dalkeennii wey dalkeennana innagaa waad aragtee dadkiina dibadaha joogta dadka dalalkooga joogtaan sida ay yihiin iyo sida ay looka ay karaamad u leeyihiin iyo sida ay ajnabiga ma garanaysaa صح ya yani waad qaloonaysiin oo inaad dalkiinni waad garanaysaa نعم halkan kuwa jooga reer Jabuuti inay dalkoogii joogaan ma garanayaan inay dad kale inay qaxooti yihiin
iyaad moodaa noloshooda iyo sida ay yihiin iyo sida ay u cabsoonayaan iyo sida magarasa inay waxaad moodaa inay qaxooti yihiin oo ay waddan kale oo maaragtay la raafaya ay joogaan oo maaragtay iyaad moodaa waxaan leeyahay waan bini aadanka ilaahay baa abuuray nin walbana meel buu ku abuuray bini aadanku ilaahay baa karaameeyey nin nebiyadii iyo dee dadkii ilaahay maaragtay uu soo diray ee maaragtay uu dee isu karaameeyey maahin bini aadanku karaamu nin waliba leeyahay inkastoo nebiyadiiyo ay karaamu leeyihin nin dalkiisa nin waliba dalkeenuna wuxuu inagu leeyahay waajib buu inagu leeyahay dowladnimadeenu waajib bay inagu leedahay inaan cid maaragtay xumaanta ka dhowrano inaan maaragtay aanan dal ceebaysan iyo dad ceebaysan aynaan ahaan inaan maaragtay karaamadeenna iyo sharafteedna ilaashano inaan dulligana diidno waan gaal baan dulligiisa diidnay gaal baan dulligiisa diidnoo nidhi dalkayaga annagaa leh 43 sannadood dictatornimaka maamalaha mooyaan xaylo 43 sannadood kelidii ahaa banu maray iyo odaygii maxaa la odhan jiray isbaanyoolka xakumi jiray iyo nin bortugiisa maaragtay xakumi jiray saddexdaa nin baa wax 40 sannadood gaadhay jiray waxa maaragtay dhulka adduunyada soo maray marka waxa weeye war xukunka kol ku raagantee hadduu inuu dadkiisa duleeyo oo uu maaragtay uu doonayo dee yeeli mayno reer Jabuutiyo waxaan leenahay waa dalkeennii burburin mayno bi'ini mayno xumayn mayno cayda iyo sakajaanka iyo waxanahan iska dayno wixii muhiima waa dalkeenna masha Allah waa dalkeenna wixii sida lagu socdana waa laynaga burburinayaa naga daayaan odhanayna naga daay masha Allah annaga burbur in lama jeclin karaamad xumo in lama jeclin ceeb in lama jeclin innaga oo sharaf leh oo walaalahaya ah oo maaragtay waan maalanay oo ummaddu way maalatay oo meel xun bay ku dhici naga joojiya walaalo salaamu calaykum waad si wanaagsan iyaad ku soconaysa masha Allah barnaamijkii Sinaan TV ka baxaya oo caawa inta inoogu dhan waxa inoogu marti ahaa qaamuus qaran halyey qaran saaxiibka calanka sumajesi Umar Cilmi Khayre madaxweynaha dhabta ah ummadda reer Jabuuti dooratay intaana la marorsan iyo siyaasi Aya Cabdillaahi intaan mar dambe kulmayno waa Faarax Qute iyo baahiyaasha Sinaan TV oo inile isma dhaafno reer Jabuuti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bye.